xubintayada ma og tahay maanta waxaan diiradda ku saaraynaa taariikhda waddanka Iiraan. dalka Iiraan waxaa sidoo kale loogu yeeraa ama lagu magacaabaa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ama Bershiya. waxa uu ku yaalaa galbeedka qaaradda Aasiya waxaana uu xuduud la wadaagaa waddamada kale ah Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Afghanistan, Ciraaq, Turkiga iyo Pakistan. dhanka koonfureed waxaa ka xigo gacan biyoodka Beeshiya, Hormuz iyo Cumaan. xuduud badeed waxa uu waddanka Iiraan la wadaagaa dalka kaleete Ruushka oo ay xuduud ahaan wadaagaan badda lagu magacaabo Caspian. bedka ama dhulka ama baaxadda waddanka Iiraan waxaa lagu sheegaa ama lagu qiyaasaa in 1,648 kilomitir iskuweer ah ama laba jibaaran uu yahay. dhulkaasina inta badan waa biyo. tirada dadka Iiraaniyiinta waxaa lagu qiyaasaa 78 milyan oo ruux. waa dalka labaad ee gobolka bariga dhexe ugu weyn, waana dalka 18aad ee dunida ugu weyn. sidoo kalena waa waddanka 17aad ee dunida ugu dadka badan sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. dadka Iiraaniyiinta waxay u badan yihiin muslimiin Shiico ah, waxaana bulshada waddankaasi boqolkiiba 97 lagu tilmaamaa in ay yihiin Shiico. waxaa sidoo kale jiro muslimiin aad u tiro yar iyo masiixiyiin. caasimadda waddanka Iiraan waa Tehraan, waxaana dad tiradooda lagu qiyaasaa 8.3 milyan oo ruux ay ku nool yihiin caasimaddaasi. waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn galbeedka qaaradda Aasiya. dalka Iiraan waxaa lagu dhawaaqay in jamhuuriyad islaami uu yahay 1 bishii afraad ee Abriil sannaddii 1979. waxaana arrintaasi ay ka dhalatay kacdoonkii hormuudka ka ahaa wadaadka caanka ah ee la odhan jiray Ayatullah Ruuxullaahi Khumani oo isla markaasina dalkaasi dib ugu laabtay. lacagta waddanka Iiraan laga isticmaalo waxaa la yidhaahdaa riyaal. saydka gawaarida ee maraan ama isku dhaafaanna waa dhanka midigta. luuqadda waddanka looga hadlo ee dawladda aqoonsan tahay waa Beeshiyaanka. waxaase jira luuqado kale oo ay ka mid yihiin Armenian, Azeri, Kurdish, Georgian, Turkmen, Carabiga iyo luuqado kale. dalka Iiraan waxa uu leeyahay dawlad ku shaqayso dastuur u qoran, waxaana waddanka uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen, golo shacab iyo wadaad ruuxi ah oo talada waddanka ay ka go'do. madaxweynaha waddanka Iiraan waxaa la yidhaahdaa lagu magacaabaa Xasan Ruuxaani. madaxweyne ku-xigeenkana waxaa lagu magacaabaa Ishaaq Jahangiri. hogaamiyaha ruuxiga ahna waxaa la yidhaahdaa Cali Khumeyni. dhanka ciidamada marka aanu ka eegno, dalka Iiraan waxa uu leeyahay 545,000 oo askari oo mar kasta heegan sare ku jiro, iyo 350,000 oo kayd ah, iyo in ka badan 900 oo xeryaha tababarka haatan ku jira. dalka Iiraan waxaa ku yaalla warshado lagu farsameeyo gaadiidka dagaalka, qoryaha rasaasta iyo noocyada kala duwan ee gantaalada. agabyo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka, maraakiib iyo hub kale ayaa la sheegaa in ciidamada Iiraan ay leeyihiin, waana ciidamo aad u qalabaysan. dalka Iiraan waxaa sidoo kale ku yaalla warshado waaweyn oo nukleerka lagu bacrimiyo, waxaana la aaminsan yahay oo waddamada reer galbeedka ay ka dhawaajiyeen in dalka Iiraan uu ka mid yahay waddamada hubka nukleerka wax gumaaday qumbuladunyaha haysto, inkastoo dawladda Iiraan arrintaasi ay iska fogaysay. dhaqan ahaan reer Iiraan waa bulsho muslimiin ah, waxaana ay dhaqanka la wadaagaan dadka bulshada ku nool dunida muslimka. dharka marka aynu eegno ay xirtaan dadka Iiraaniyiinta waxay leeyihiin dhar dhaqan ahaan loogu yaqaano. tusaale ahaan dumarkooda waxay xirtaan cabaayad jidhka u asturta, madaxa maro ayay saartaan, taasoo dalkaasi looga yaqaano roo sari, iyo weliba shaati ilaa lugaha gaaro oo isna waddanka Iiraan looga yaqaano roo bosh. sidoo kalena xijaabka ay xirtaan dumarka muslimiinta ayay sidoo kale xirtaan.